halkan idiin muuqanaysa daawadayaal waa xarunta badbaado oo ay ku nool yihiin qoysas barakacyaal oo aad u tiro badan. waxay ku taalaa degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir. waxay kaabiga ku haysaa wadada aado xoosh agagaarka Ex Control Afgooye ee Muqdisho. markii aad kor ka milicsanayso muuqaalka guud ee xirada badbaado way ka weyn tahay xirooyinka kale ay ku nool yihiin dadkan iyaga waxba aan daamin. qoysaska xiradani ku noolaya waxay gaarayaan 1500 qoys kuwaasoo ka soo hayaamay deegaanadii ay ku noolayeen waxayna uga soo carareen guryahoodii abaaro iyo dagaalo xilliga ka taagnaa goobahaasi. dadkan ayaa waqti ahaan waxay xirada badbaado soo gaareen bishii 6 ee sanadkii 2011 xilligaa uu dib u dejin uu sameeyay madaxweynihii dowladda ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed. xilligaa wixii ka dambeeyay dadkan ku nool xirada badbaado ayaa waxaa soo food saaray xaalado kala duwan ay ugu horeyso tan nolosha iyagoona aan helin waxyaabaha nolosha bini'aadamka asaasiga oo ah sida cuntada, waxbarashada iyo biyaha. daawadayaal qoysaskani guryaha ay ku nool yihiin ayaa waxay yihiin kuwa ka samaysan dhowr ulool isku keenay kuna dahaaran baco iyo marooyin kuwaasoo aan awoodin inay ka celiyaan ilayska quraxda iyo qabowga soo dhacaya habeenkii gelinka dambe. haweenkii ragga ku dhaqan xirada badbaado ayaa waxay yihiin kuwa ay soo food saartay shaqo la'aan. haweenka ayaa noloshooda ku maareyn jiray dhardhaqidda iyagoona looga marmay khasaaladda maadaama guri walbo aad ku arkaysay inay taalo khasaaladda, halka ragga ku dhaqan xirada badbaado nolosha qoyska ay ku maareyn jireen gudqodista islamarkaana $1 ay ka soo helaan shaqadaasi ay ku biili jireen qoyskooda danteeda. balse waxaasi dham looga maarmay khasaaladii weliba shirkado nadaafadda oo haatan ka shaqaynaya dalka gudihiisa. Saare Maxamed Raage iyo weliba Qamar Shire waxay ka mid yihiin haweenka ku dhaqan xirada badbaado ee nolosha qoyska ku maareyn jiray dhaqidda. waxay ka waramayaan saameynta ku yeelatay khasaaladda iyo waxay hadda ay ku nool yihiin. dhibna aadintii qobada kor nahay sidii uu awlaadan in iska dhax jarno hoosteeda una fadhiin baan oo run email oo la bileen bahaw male meel dharka dhaqada male wal shaqo hadda jaroon male hatta ragi oo baxa jaray foofay oo god qashinka qodo jaray hatta god qashinki hanagadoy ebershay inta kooyahay wallahi ma jart wallahi wal ilaahan dhibi aameen ma idriska ka noolin ma wal hadan hay ma jart. xeerada badbaado waxaan degnaa 7 sano waxaan dhibaato aan kala kulnay dhibaatada una kala kulnay may ba 7 sano degnayni Sheekh Shariif waagro horta caawana on halna ninka damboyti dharrago isku shaqaysan hadan dharrago ku meelashana wal qasaalid la rawal shani hadii xafada seeto ndaago dharkiyaba wardeen waa warwaranayaan in leediseenab hiraabta tumila masa ila kuwada seeran hadii kuwad seen hanagana duurku no baahna kooyan maalinta lamaad meelashalay an shaqada ku waay meegnaga la bukurey meenka baahane afgooy bukureyda dashan hadan galeeyta ma inaan ka dhigay tumo ila madaalki tumo ila makun awoolintada ma kuma gadada jirnay. danka kale Ibrahim waxa uu ka mid yahay ragga ku dhaqan xirada badbaado ee nolosha qoyska ku maareyn jiray gud qodista. wuxuu haatan ka waramayaa inuu yahay qof shaqo la'aan ah isla markaana saameyn ballaaran ay ku yeesheen shirkadaha nadaafadda ka shaqeeya ee haatan ka hol bilaabay gudaha dalka. horta nolol xuna ku noolnahay sababtoo ah waxa lagu shaqeeyaa maanaha god qashan waxa lagu shaqeeyaa shub marka waxyaabahaas aan ku shaqeynaa ani ahaantay waxaan ka shaqeeyaa maanaha marna shaba aada marna maanaha god qashanka aadna marka shibkii waxa hor istaagay ii sheegeen maanaha shirkado oo kambaniyal waaweyn oo maanaha oo shibay maaragta oo booyada waaweyn leh kuwaas maanaha hor istaagay shibkii horta haddana maanaha nadaafadda godka qashinka saan u dhahaynay oo meelaha loogu wareegay maaragta ayagana waxa nadaafad oo maanaha gobolka Banaadir sameeyay oo dawladdan intay imaad la sameeyay oo ayagana ay ka shaqeeyaan maaragta dad gaar ah oo hadii la arkaba maanaha godka qashinka qofku wada oo maanaha qoday degmooyinka meesha aadaba waxa lagu leeyahay wariya maxaa meesha u qodaysa maxaana ka sameynaysa. su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay aaway ganacsatadii Soomaaliyeed iyo inta uu Ilaahay wax siiyay doorkii ay ku lahaayeen u gargaaridda dadka barakacyaasha. sida aad muuqaalkan ka arkaysaanba dadkani ayaa waxay yihiin kuwa isugu jira haween, caruur iyo dad kuwaasoo wajiyadooda aad ka dheehanaysaan diifta iyo dacdarada haysato. Sheekh Axmed Maxamed Mahad Alle waa horjoogaha kaamka waa horjoogaha xiradaasi badbaado waxa uu ka waramayaa dhibaatooyinka 4 sano ee u dambeysay xirada badbaado ka jiray. wuxuuna baaq u diray inta uu Ilaahay wax siiyay in ay gurmad bini'aadanimo ay la soo gaaraan
maadaama dadka halkaasi ku dhaqan yihiin kuwa dhibaatooyin adag ay soo wajaheen haatanna ah kuwa u baahan in lala soo gaaro gurmad bini'aadanimo. horta xeradan badbaado waxaa la aas-aasay 2011 bishii 6 ayay ahayd anigu xilliga aan ku soo maxay ahaatay barakac aan u imiday waxaana ka mid ah sideedaba anigu dadka barakacyaasha ahana ka mid ah haddii lay warsado dhibaatada way fara badan tahay waxaa ka mid ah waxbarasho la'aan caafimaad la'aan waxaa ka mid ah biyo la'aan waxaa ka mid ah musqulo la'aan waxaa ka mid ah hoy la'aan wax la soo koobi karaa ma jiraan dadkan aad u jeediin oo meesha iskula cambuulaysan meel kastaba sidii noogala soo barakicinayo noola fujinaya ayaa hal meelo yar ummadii oo dhan la isugu keenay marka dhibaatada wax la sheegi karo ama la koobi karo ma aha waa taagantahay baaqaan dira wuxuu yahay dowladda Soomaaliya hay'adaha qaramada midoobay master kitchen aan leeyahay wali caad asaa wakiil ka ah hay'adaha qaramada midoobay asaa wakiil ka ah yowsan daawanin dadkii dhibaataysnaay oo wakiilka ka ahay ayaan nahay gurmad degdeg ah u baahanaa. booqashadani aan ku imaanay xirada badbaado ayaa waxay tahay inaan wax badan ka ogaano xaaladaha adag ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ee ku dhaqan xiradani iyadoona wajiyadooda aad ka dheehanayseen diiftii dacdarada ay la daaladhacayaan dadkani barakacyaasha ayaa waxay ugu dambeysay gurmad bini'aadanimo la soo gaarsiiyo 4 sano ka hor iyagoona sheegay inay ka niyad jabeen gabi ahaanba dawladda uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud ee waqtigeedu dhamaaday maadaama aysan jirin mas'uul isku xilqaamay dadkani inuu soo gaarsiiyo gurmad bini'aadanimo ama uu muujiyo inuu la qaybsanayo xaaladaha adag ee xilligan ku nool yihiin kaliya dadka barakacyaasha kuma koobno dhibaatooyinka meelaha ay ku qabaan xiradani badbaado ee waxay ku tabaalaysan yihiin qaybo ka mid ah geyga Soomaaliya iyagoona marar badan cabashooyin ay ka soo yeertay mana jiro cid ka jawaabta cabashooyinkaasi. Samiir Cabdirasaaq Umar wararka telefishinka STN Muqdisho.